magacaygu waxa weeyaan walaal Axmed Shire Maxamed ahna marketing manager-ka Somtel Puntland. Somtel maanta waxa ka soo qayb gasheen bandhiga carooyinka shaqooyinka Puntland bal maxay idinka dhigantahay inaad ka soo qayb gashaan bandhiga maanta qiimo badan bay noo leedahay ama ma aragtay waxay noo tahay chance aad qurux badan si aan ugu soo bandhigno bulshada reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeedba adeegyada shirkadda Somtel ay bixiso. maxay yihiin adeegyada aad ku soo bandhigteen runtii waxaan ku soo bandhignay Somtel sida dadka waxay kamid tahay shirkadaha hormuudka ah ee Puntland ama guud ahaan Soomaalida. shirkadda Somtel waxay bixisaa adeegyo ay kamid yihiin internetkii oo nooc ugu dambeeyay tusaale ahaan waxaanu bixinaa fiber optic oo aan gebi ahaan Puntland gaarsiinay internet. way adeegyada dheeriga halkan saaka aad ka qayb galeysaan ee carwada tan bal iyaga laftooda faahfaahin nagas aad baad mahadsantahay walaal adeegyada halka kaga qayb galinay waxa kamid ah maanta barnaamijkan wuxuu khuseeyay shaqo abuurka bal sidee dhalinyarada shaqo loogu abuuri karaa haddii aad dib u eegto page-ka Puntland Job Fair waxaan ku soo bandhignay ugu yaraan ilaa 10 shaqo oo aan ugu talagalay inay ka faa'iideystaan dhalinyarada shaqadoonka ahi shaqooyinkaas waxay isugu jiraan kuwa heer maamul ah oo heer gobol iyo heer degmo kuwa professional sida IT iyo technical waxaan ugu talagalay inay ka faa'iideystaan dhalinyarada shaqadoonka sidoo kale adeegyada aanu bixino waxa kamid ah Allahu musta'an waxa jira adeeg la yiraahdo la shaqeyso Somtel adigoo gurigaaga jooga chance-ka waxaan ugu talagalay hablo iyo ragba inay ka faa'iideystaan maadaama oo iyagoo gurigooda jooga oo aan wax shuruuda lagu xidhin CV lagu xidhin gurigooda iyagoo jooga ay qaarkood sameeyaan bishii lacag gaaraysa $1,000 waxay u sameeyaan waxay iska diiwaan galiyaan adeega la shaqeyso Somtel kaarkiisu iska diiwaan gelinaya waxay u sahlaysaa soo gurigiisa jooga habeen iyo maalin inuu gado productyadii kala duwanaa ama adeegyadii kala duwanaa ee Somtel bixinaysa carwada shaqooyinka Puntland baad maanta ka soo qayb gasheen Somtel ahaan bal ka soo qaybgalkan see waragtaa بسم الله الرحمن الرحيم أم الخير يا أدو ما سنتهي مجاعي واحد لهذا أحمد عريس نهانتي وحن كفر حسنا هاي إنه كسوق قبل قلنا عروضة شغلة بنتلاند شوب فير ما أنتي نوحي واحد فرصة وين ما دام إنه كسوق بندقة إني بوزيشنه وين أو كمباني شركة Somtel كبنان وأيسون مانجرز كوتشرانين أو ريجونال مانجرز كوتشرانين أو سوبرفايزرز كوتشرانين نهانتي وحين كسوق عاديني أم كسوق عادي بيان أورن كريا وقتي شغل أبور كلنا يرد الله سمين لها يسيدو كلا وقتي شركة يوجد يوقف إذن لهيت فرصة ده هيسو dhalinyarada reer Puntland marka runtii aad baan ugu faraxsanahay inuu maanta ka qayb galno shirkadahan waxaan kaloo ku darayaa shirkadda Somtel waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada reer Puntland inaan ugu bushaareeyo in shirkadda Somtel ay wado barnaamij abaal la yiraahdo oo bulshada ay kaga faa'iideysan karto haddii si regular oo isticmaalo daatooyinka shirkadda iyo internetka haddii si regular oo isticmaasho ay bulshada Soomaaliyeed ay ku heli karayaan in iPhone iyo telefono iyo hadiyado ay shirkaddu ugu talagashay sidoo kale waxaan rabaa in bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada reer Puntland uu ogeysiyo in shirkadda Somtel adeega internetkeedu yahay adeeg aad u xawaare sareeya oo muddooyinka u dambeeyay aad dhalinyarada Soomaaliyeed ay isticmaalayeen abaal marka waa barnaamij hadda soo siyaaday oo shirkaddu bishii ugu dambeysay ay mataqaanaa ka shaqeynaysay oo ah barnaamij si regular loogu dhiirigelinayo dadka macaamiisha in adeegga shirkadda ay isticmaalaan si ay nasiib ugu yeeshaan inay ku guuleystaan in mobilada qaaliga ah oo smartphones-ka ah iyo iPhone-ku ku jiro oo Samsung-ku ku jiro iyo hadiyado kale fara badan shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel